cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wadashekaysi wadashekaysigaas oo ku saabsan shaqo la'aan yani laba wiil oo mar hore isku dambayso saaxiibo iska wareysanaya shaqadii iyo waxay hayeen wixii u kala dambeeyay yani marka cali baa bilaabaya sheekada wuxuu leeyahay hi Omar, how are you doing these days sidee tahay maalmahan Omar oo iska waran sidee tahay maalmahan Omar, oh hi Ali, I'm not doing very well actually, ma wanaagsani xaqiiqatan aad uma wanaagsani ayuu ku yidhi marka waa salaantii uu ka celiyey uu ugu jawaabay aad uma fiicni. cali baa wuxuu yidhi I'm sorry to hear that, aad baan uga xumahay inaan taa maqlo. What seems to be in problem, maxaa ay tahay dhibaatada muuqata yani dhibtu maxay tahay wey, what seems to be the problem, maxay tahay dhibta jirtaa. Omar wuxuu yidhi you know waad ogtahay I have been looking for work, I can't seem to be find a job. wuxuu wada ogeyd inaan muddo badan aan raadinayo shaqo ilamana muuqato inaan helayo shaqo buuri. You know I have been looking for work, I can't seem to find a job. waad ogeyd inaan muddo dheer shaqo raadinayay ilamana muuqato inaan helayo. Ali, that's too bad, taas aad ayay u xun tahay. Why did you leave your last job, maxaad uga tagtay shaqadaadii u dambeysay, that's too bad. Why did you leave your last job, shaqada u dambeysay maxaad uga baxday. Omar baa wuxuu yidhi well, my boss treated me badly, I didn't like my chance of advancing the company. wuxuu yidhi aniga booskayga si xun ila dhaqmay ama iigu hanjabay, and I didn't like my chance of advancing in the company, yani mana jeclaysan fursadaha aan ku horumarinayo yani shirkadda, saas aawadeed baan uga baxay buu ka wadaa. Ali, that makes sense, taas waa tumic sameynaysa. A job without opportunities and difficulty pose isn't very attractive. That makes sense. A job without opportunities and a difficulty pose isn't very attractive. wuxuu yidhi taas waa tumic sameynaysa, waa tumic aqal gala macnaha. shaqo a job without opportunity, shaqo aan fursad lahayn, aan bilaa fursadii yani bilaa chance ama bilaa fursad opportunities and difficult boss, iyo weliba boss adag isn't very attractive, mid aad wanaagsan maaha. Omar baa wuxuu exactly so, xaqiiqatan haa. Anyway, si walba ha ahaatee, I decided to quit and find new job. Exactly so, anyway, I decided to quit and find a new job. xaqiiqatan haa, si kastaba ha ahaatee waxaan go'aansaday inaan ka baxo oon raadiyo shaqo cusub. I decided to quit and find new job. waxaan go'aansaday inaan ka tago oon iskaga baxo. Quit waa loo yaqaanaa iska tigid, inaan ka tago and find new job, shaqo cusubna raadiyo. I sent out my resume to more than 20 companies. Unfortunately, I have only had 2 interviews so far. I sent out my resume to more than 20 other companies. Unfortunately, I have only had 2 interviews so far. waxaan u diray resumegayga ama CV-gayga, waxaan u diray in ka badan 20 shirkadood. nasiib xumose I have only kaliya waxaan helay 2 interview. intii aan waraaqaha dirayay waxaan helay kaliya 2 interview. Ali, have you tried looking online for a job, miyaad isku dayday shaqooyin online inaad raadiso. Omar baa wuxuu yes, but so many of the jobs require moving to another city. I don't want to do that. wuxuu yidhi haa waan raadiyey, laakiin shaqooyinka badanaa waxay igu xidhayaan inaan magaalo kale inaan tago oon u socdaalo, taasna ma doonayo. cali baa wuxuu yidhi I can understand, fahmi karaa taas. How about going to some of the networking groups. Omar ka warran buu kuli markaa I can understand, taa waan fahmi karaa. How about going to some of the networking groups, ka warran gruubyada isku xidha ka warran. Omar I haven't tried those, weli iskuma dayin. What are they, maxay yihiin. cali baa wuxuu yidhi they are groups
of people who are also looking for a work waa kuwa shaqo raadinaya sidoo kale they help each other way iscaawiyaan and discover new opportunities waxayna daahfuraan shaqo cusub discover new opportunities waxayna daahfuraan fursad cusub waa dad shaqo raadinaya sidoo kale iyaguna waxa ay iska caawiyaan way iscaawiyaan waxayna daahfuraan fursad cusub